Assalaamu calaykum asxaabta fahamka. Dunida aynu ku noolnahay waxa ay mararka qaarna tustaa dhacdooyin aan la rumaysan karin, sheekooyin maskaxda dadka caadiga ah ka baxsan, balse dhab ah, si weyn u taabanaya qalbiyada aadanaha. Maanta waxaad maqlaysaa qiso murugo leh. Wiil yar oo maskaxdiisa ay joojisay shaqadeeda, balse haddana wuxuu muujinayaa astaamo fikir oo yaab leh, kuwaasoo dhakhaatiirta iyo bulshada nafsiga ka yaabiyey. Sheekadani ma ahan mid lagu qoslo ama lagu madadaasho, waa mid qalbiga taabanaysa. Waa sheeko qof kasta fahamsiin karta qiimaha nololeed ee rajo la'aanta lagu noolaan karo. Sheekadu waxay ka bilaabataa dalka Faransiiska, halkaas oo uu ku dhashay wiil la yiraahdo Matthew. Markii uu dhashay, wax dhibaato ah laguma sheegin jirkiisa, laakiin dhowr toddobaad kadib, hooyadii waxay bilowday inay aragto waxyaabo aan caadi ahayn. Ilmuhu ma faraxsana, ma ooyayo, ma qoslayo, hindhihiisu meelna ma raacayaan. Inkasta oo la mariyay baaritaanno tiro badan, dhakhaatiirtu waxay ogaadeen in maskaxda wiilka aysan firfircoonayn. Qaybaha muhiimka u ah waa fahamka iyo falcelinta jawiga ku hareeraysan way dansan yihiin. Dhakhaatiirta, iyadoo la adeegsanayo qalabyo casri ah oo MRI ah, waxay sheegeen in maskaxda wiilka aysan lahayn firfircooni ku filan inuu si caadi ah u noolaado. Waxaa loo sheegay qoyskiisa inuu ahaan doono mid aan hadli karin, aan wax dareemi karin, aan socon karin, si kooban u ahaan doono qof ku nool jirkiisa oo keliya, balse maskax ahaan aan la joogin nolosha. Qoyska, gaar ahaan hooyadii, waxay la kulantay rajo beel weyn, laakiin iyadoo aan la filaynin, wiilku wuxuu bilaabay inuu muujiyo astaamo yaryar oo yaab leh. Marka uu hadalka hooyadii maqlay, hindhihiisu way dhaqaaqeen. Haddii iftiin lagu shido, wuu fiirinayay. Xitaa marka uu maqlo cod cusub, jirkiisu wuu gariirayay. Waxaasi waxay ahaayeen astaamo dhakhaatiirta u sheegi waayeen. Waxaa la arkay inkasta oo maskaxda wiilka aysan si buuxda u shaqaynaynin, haddana uu leeyahay xasuus, feejignaan iyo dareen nololeed. Waxaaba dhacday in hal mar, markay hooyadii tiri erey gaar ah oo uu jeclaa, ay hindhihiisu ilmadu ka soo daateen. Waxaasi waxay dhakhaatiirta ku khasbeen inay sheekada dib u eegaan. Waxaa loo yeeray khubaro ka tirsan cilmi nafsiga iyo cilmi-baarayaasha maskaxda. Markii baaritaan dheer lagu sameeyay, waxaa la ogaaday inuu wiilku leeyahay awood maskaxeed oo aad u gaabisa, laakiin haddana si gaar ah u shaqaynaysa. Waxay yiraahdeen waa markii ugu horreysay ee aan aragno maskax aysan firfircoonayn, balse haddana leh fikir iyo dareen nololeed. Markii sheekadiisu ku faaftay baraha bulshada, malaayiin qof ayaa ka falceliyay. Dadku waxay la yaabeen adkaysiga qoyskiisa, gaar ahaan hooyadii aan marna niyad jabin. Dad badan ayaa qoraallo ku yiri, tani waa mucjiso, waa cashar na tusaya in xitaa marka rajadu lunto, uu Ilaahay leeyahay qorshe ka weyn midka aadanaha. Sheekada Matthew waxay noqotay mid lagu baranayo cilmiga maskaxda. Jaamacado waaweyn ayaa bilaabay inay cilmi-baaris ka sameeyaan xaaladdiisa. Waxa uu noqday kii ugu horreeyay ee lagu tilmaamo qof aan maskaxdiisu shaqaynaynin si caadi ah, balse ay weli jirto iftiin yar oo fikir ah. Sheekadani waxayna tusinaysaa in aadanaha aanan awoodin in la saadaaliyo awoodda dhabta ah ee Alle ku beeray qof walba.
mararka qaar waxa aan maska ahaan u aragno inuu yahay dhammaad wuxuu noqon karaa bilow. Wiilkan Matthew, inkasta oo maska ahaan loo sheegay in aanu shaqaynaynin, wuxuu noqday qof bulshada tusay mucjiso cusub. Waxaan dhagaysanay sheekada wiil aan maskaxdiisu shaqaynaynin balse haddana fakaraya. Waa cashar nolosha ka mid ah. Waxaa laga yaabaa in qof maanta la yiraahdo waxba ma noqonaysid, beri uu noqdo isha lagu daydo. Haddaba adigu ha quusan, hana dhayalsanin awoodda Alle ee ku qarsoon noloshaan. Qisadan yaysan noqonin mid aad dhagaysato oo keliya, ha noqoto mid aad ku noolaato.